Bismillahirrahmanirrahiim. Saaxiibayaal qodobada wararka maanta aan idin hayno kuwooda ku door karoon waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyay xukuumadda cusub, mucaaradka Somaliland oo qabanaya mudaharaad ay xukuumaddu ku tilmaamtay sharci darro, Mareykanka oo soo dhaweeyay ansixinta golaha wasiirada, qaar ka mid ah saraakiisha NISA oo lagu sameeyay isbeddel cusub, dowladda Qatar oo dhambaal casuumaadda u soo dirtay madaxweyne xasan sheekh. Aan ku bilaabay baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay golaha wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib kulankii golaha shacabka, iyada oo 229 xildhibaan ay u codeeyeen xukuumadda cusub. 7 xubnood ayaa diiday golaha halka hal mudane oo ka aamusay. Codbixintan ayaa ka dhigan in golaha cusub ee wasiiradu ay xilkoodu la wareegaan isla markaana gudagalaan hawsha loo igmaday. Toddobaadkii hore ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabay golo wasaaradeed oo ka kooban 75 xubnood oo isugu jira wasiiro, wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno, waxaana xukuumaddiisa ugu magacdaray xukuumadda dan qaran. Golaha wasiirada waxaana ku jira wasiirka awqaafta iyo diinta Mukhtaar Robow Abumansuur oo horey ugu tirsanaa kooxda Al-Shabaab, isla markaana muddo ka badan 3 sano iyo bar u xirnaa dowladda federaalka tan iyo bishii Diseembar sanadii 2018. Robow ayaa xilligaasi laga soo xiray magaalada Baydhabo kadib markii dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo xilka madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Xisbiyada mucaaradka Somaliland ee UCID iyo Wadani ayaa qoraal u gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ay ku wargeliyaan in ay mudaharaad sameyn doonaan maalinta Khamiista ah. Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo saaka wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin uu ka digay mudaharaad sharci darro ah sida uu hadalka u dhigay. Mareykanka ayaa soo dhaweeyay ansixinta xukuumadda cusub ee Soomaaliya, waxaana safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay hambalyo ku aadan ansixinta golaha wasiirada u dirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ansixinta golaha wasiirada. Mareykanku waxa uu aad u daneynayaa inuu sii kordhiyo taageeridda soo noolaynta Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraal rasmi ah oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee safaaraddaasi. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor hore oo maanta ah ansixiyay golaha wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib kulan golaha shacabku, iyada oo 229 xildhibaan ay kalsoonida siiyeen xukuumadda cusub. 7 xubnood ayaa diiday golaha halka hal mudane oo ka aamusay. Codbixintan ayaa ka dhigan in golaha cusub ee wasiiradu ay xilkoodu la wareegaan isla markaana gudagalaan howlaha loo igmaday. Dhinaca kale, agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa isbeddelkii labaad ku sameeyay qaybo ka mid ah hoggaanada. Isbeddelka lagu sameeyay waxaa ka mid ah agaasinka arrimaha dibadda ee NISA oo loo magacaabay sarkaal lagu magacaabo Cadow oo hore u haystay waaxda CT. Xilka agaasinka arrimaha dibadda waxaa laga qaaday sarkaal lagu magacaabo Liibaan Kadiye oo ka mid ahaa raggii aad ugu dhowaa agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin. Markii ugu dambeeyay oo Fahad dalka isaga baxayay, ka mid ahaa raggii hore u raacay. Mahad Maxamed Salaad ayaa hore Cabbaas Yacquub u magacaabay kaaliyaha maamulka NISA, wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii hore ula soo shaqeysay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taliyihii hore ee NISA.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan ayaa isaguna hore Mahad Salaad ugu magacaabay kaaliyaha sirdoonka NISA. Wuxuu horey u soo noqday maamulaha Maxadka Cilmi-baarista iyo Tababarada ee hay'adda iyo gacan yarihii agaasime ku-xigeenkii hore ee NISA Jenaraal Cabdalla Cabdalla.